السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين والله ليال سو دواada maanta muuqaalkan waxaan idin kula wadaagayaa qaabkaad u bilaabi lahaydeen warshad sambuus oo soo saarta maalintii 2000 3000 oo sambuusa oo aad $400 $500 maalintii laga soo xareyn karo insha Allah walaalayaal waxaan halkan idin kula wadaagi doonaa qalabyada aad soo iibsan lahaydeen ayaan halkan idin soo saarayaa tusaalayaashooda iyo muuqaaladooda si aad markaad u diyaar garoodaan aad u raadsataan una soo iibsataan hadii Ilaahay yiraahdo intaana gudagelin waxaan jeclaan lahaa marka koowaad inaad muuqaalka aad like saartid sidoo kale saan xisaabta uga qiyaas qaato halka xabay sambuuska ah magaalada aad joogtid maxaa laga siiyaa ma 25 senti ma 0.3 senti ma imisa ayaa laga siiyaa magaalada aad joogtid hoosi gula wadaag si gaar ayaan laf kugu saaraya insha Allah inta markaan ka nimaadno walaalayaal sambuusku wuxuu ka mid yahay dadka Soomaaliyeed wadad aad u taga maqaayadaha wadad aad u casriyeeya u shaaha xilliyada arooska oo kale iyo xafladaha wadad waxyaalo badan adeegsada marka waxa kamid ah sambuuskan aad aragtaan oo kale isticmaalkiisu aad loogu badan yahay xilli aan anigu haystay cafeteria la dhaho Royal Chicken and Chips ayaan waxaan ka soo iibsan jiray laba hodeel ama maqaayadaha cuntada sameeya oo in badan soo saara ayaan ka soo iibsan jiray marka caqabad waxa iman jirtay markasta shaqaalaha in la waayay jiray oo shaqadu ay kala istaagi jirtay oo sambuuska la heli karin insha Allah walaalayaal maanta waxaan halkan idinku saaleynayaa tan qalab oo aad u baahan tahay si aad u samaysid warshad yar oo sambuuska soo saarta qalabka koowaad ee walaalayaal cusub aan muuqaalkan ku soo kordhinayaan sida aad baa loogu baahan yahay waa sambuuska waxa ugu hawl badan burka ama daqiiqda fooliyada lagu laabayo ee loo sameynayo la xashayo ee birkimiseedka ma artay lagu kala fidinayo hadda walaalayaal dow sheeter qalab la dhaho oo xaashi ka dhiga ama fooliyo ka dhiga daqiiqda ama burka ayaad u soo iibsanaysaa mashruucan sambuuska si aad 2000 oo xabba aad ugu diyaarsid hadda nimankan gacanta ku sameynaya aragtay waa niman Hindiya Pakistani ah waxay markaa fooliyadii sambuuska lagu laabi lahaay oo kale saad muuqaalka halkan ka aragtaan bay diyaarinayaan marka yaani fooliyada weyn ba hal mar iska kor saarayaan wada jarayaan 5000 oo fooliyo 2000 oo fooliyo 3000 oo fooliyo sambuus lagu ridi karo ay halka ku diyaarinayaan hadda walaalayaal qalab noocaas oo kale la mid ah oo dow sheeter la dhaho kuwa yaryarna waa jiraan kuwa weynna way jiraan ayaad u soo iibsanaysaa kan hada Turkiga oo kale lagu sameeyo ayaad soo gadanaysaa oo yaani waxaad arkaysaa waxa la dhex gelinayaa burkii ama daqiiqdii ka bacdi iyadoo fooliyo ah oo weyn ayuu soo saaraya markaad ku diyaarsatid fooliyadii oo aad ka jaratid 500 xabo 2000 xabo halkii mar waxaad kaga maarmaysaa shaqaalihii badnaa ee burka maanta oo dhan kala fidinayay ee u diyaarinayay sambuuska waa qalabka koowaad aad mashruuca sambuuska aad u soo iibsanaysid qalabka labaad markeen burkii iyo fooliyadii aan diyaarsanay sambuuska gudihiisa waxaa lagu guraa hilib Soomaa hilibkii sambuuska aad u jecel yihiin Soomaalidu mashiinkan yar waa mashiin commercial ganacsiyeed oo 100 kiilo oo hilib ah ayuu duqadii kaaga dhigayaa sambuuska la dhex gelinayay saacadii ama ka badan ba uu ku soo saaraya marka hilibka ayaa lagu gurayaa ka bacdi hilibkii geela kiilo oo jiirki saafiye markaad gelisid ayuu isla markiiba isagoo oo duqada xaqii hilibkiina ku soo saaraya si marka loogu karkariyo oo sambuuska loogu dhexrido qalabkii ayaan wali ku dhex jirnaa qalabkaasi marka waa kii hilibka lagu diyaarinayay waxa kale ee sambuuska gudihiisa gala walaalayaal waxa kamid ah qudaarta sida basasha ama kaaroodka ama waxyaalaha yaryar ee loo jarjaro waxay vegetable ama qudaar ah marka kan qalabka saddexaadna waxa la dhahaa vegetable chopper ayaa la dhahaa waa mashiin qudaarta yaryareeya oo jarjara oo isaguna 200 kiilo 300 kiilo kala tan buu leeyahay aad u soo iibsan kartid qaybtii qudaarta warshada u diyaarinaya basashii lagu gurayo kaaroodkii lagu gurayo kaabashkii lagu gurayo waxyaalihii oo dhan ayaa dhexdiisa lagu ridaya ka bacdi wuxuu leeyahay bir xaleef oo yaryarayna soo jaraysa hoos buu ku soo daadinaya halkaana waxaad kaga maarmaysaa basashii indhaha laga yaani oohinta ka keeni jirtay ee hawsha badnayd ee shaqaaluhu ay maartay dhibsan jireen waqtiga habsaanka ah keeni jirtay in la diyaariyo sambuuska ayaad kaga maarmaysaa waa qalabka saddexaad aan mashruucan aad u soo iibsanaysid waxaan rabaa inaan baraarujiyo qalabadan aan idin sharaxaysa kaliya ma iibiyo laakiin si walaalnimo ah ayaan idinku siinayaa fikrad iyo xog aad hadhowto aad u soo iibsataan waxaan anigu gado maaha aan xayisiisanayo
waa yacni mashruuc aan si free ah aan ku sharaxayo iyo qalabyada loo baahan karo taas waxaan rabaa in insha Allah isla fahanno aan markaa rabaa walaalayaal inaan baraarujiyo qofkii u baahan in fikrad ganacsi lala hirgeliyo ama wax loo qiimeeyo ama yacni mashruuc ganacsada ah oo markaa faa'iido raadinaya oo u baahan qof wax yacni la yara dhaqaajiyo wixii u soo qiimeeyo oo kale website-kayga zakaria.com haddaad gashid qayb maalmaha aan freega ahay oo aan shaqaynayn qofka dabcan jadwalkiisu waa iska busy marka maalmaha aan cid u shaqaynayn ama aanan yacni hawl ku jirin oo kale saacadahan freega ahay iyo meelahan hawshan ka qaban karno ayaad ka heli kartaa commentiga kood ayaan soo dhigayaa qofkii markaa ganacsada ah ama u baahan in hawl ganacsi lagala shaqeeyo halkaas ayuu insha Allah ballan ka soo qabsan karaa hadduu Ilaahay yiraahdo anagoo markaa ganacsiyada in Dubai looga soo qiimeeyo ama Turkiga oo kale labadaba aan ka caawin doono hadduu Ilaahay yiraahdo qalabka afaraad walaalayaal aad u soo gadan kartaan baradhada waxay ka mid tahay waxyaalaha sandwichka dhexdiisa lagu daro baradhadana waxa ugu dhib badan in diirka laga qaado intaan la jarjarin diirkaasa maanta oo dhan mindi baa maanta oo dhan lagu jarjarayaa oo shaqaalihii xilliga aroornimada sandwichka la soo saari lahaa way ka habsaamisaa casarkii way ka habsaamisaa habsan badan bay keentaa marka mashiinada baradhada lagu diiro potato peeler ayaa la dhahaa oo mashiinada baradhada lagu diiro noocaas ayaad iyagana u soo iibsanaysaa kanaada 10 kiilo oo kala ah ayaad u soo gadanaysaa oo baradhadii isla markiiba maalintii 20 kiilo 30 kiilo baradho ah ayuu diyaarinaya oo diirka oo dhan saafi ka dhigaya kabacdi mashiinkii qudaarta lagu jarjariyay ayaa la dhex gelinaya oo saas sandwichka ugu diyaarinaya halka waxaad ka aragtaa mashiinadan marka la isticmaalo in shaqaalihii badnaa ee shaqada kala habsaaminayay dadku waxay ku dhiban yihiin ganacsatada waa shaqaalo joogto u shaqeeya waqtigii soo gala wixii waqti ku diyaariya yacni shaqadii ayaa mar kasta saa habsan ku gelaysa oo ku habsaamaysa marka mashiinkaasna waa mashiinkii baradhada markaa u diyaarinayay mashruuca qalabka shanaad aad soo iibsan kartid waxaa ka mid ah insulated bag ama backpack boorsada iyadoo sandwichkii diiran yahay lagu qaadi lahaa oo kafeteriyaasha hoteelada cuntada makhaayadaha cuntada goobaha haddii aroos jiro oo kale xaflada ka jiraan booshariyaasha yaryar ee carruurta nusa saaca ka gataan meel kastaad sandwichka geynaysay ayaa waxaad ugu geynaysaa sandwichkii oo sidiisii u kulul oo markaa lasoo warshada laga soo saaray ayaad boorsooyinkan yare cuntada lagu deliver gareeyo caalamka waad aragteen qurbaha haddaad joogtaan dadka cuntada keenaya wataan ayaad ugu qaadaysaa boorsooyinkaasna 5 xabo 10 xabo ood uga soo gadanaysaa mashruucan haddaba walaalayaal maxaan u soo qaatay sandwichka yacni waxa weeye wax aad ganacsi ahaan ganacsade kale ka sii iibin kartid oo tusaale ahaan intaad gurigaaga ku diyaarisid hooyadu ay qalabka soo iibsato ama qofkii markaa rabaa ganacsi ahaan intuu samaysto intuu goobtiisa ganacsi ku diyaariyo ayaa markaa ganacsiyada magaalada ka jira ee biibitooyinka macmacaanlayaasha qaayadaha cuntada hoteelada la seexday cafeteriga iskale dukaamada yaryar ee carruurta nusu saacaha ka gataan goobaha dadku ku kulmaan ee cuntooyinka yaryar lagu iibiyo waxaas oo dhan ayaad supply garayn kartaa marka halka xabee sandwichka ah haddaad ka siisid 0.2 ama 20 cent haddaad ka siisid aad ugu wareejisid ka soo qaad waxaad markaa diyaarisay 2,000 oo sandwich ma garata ayaa diyaarisay markaad 2,000 oo sandwich aad diyaarisay 0.2 aad ku wareejisay waa $400 sidoo kale markaad 25 centi aad 2,000 oo sandwich ku sii wareejisid waa $500 marka waxaad dareemaysaa halka maalintii guud ahaan haddii aad kharashkaagu noqdo $200 macal adeega aad soo wareejisatay soo iibsatay iyo korontada iyo waxaad meel u dhigtid in $200 oo kale faa'iido aad ugu yaraan aan maalintii ka dhigi kartid $150 $170 faa'iido aad ka soo saari kartid marka meheradaha magaalada oo dhan ayaad u diraysaa sandwichka lagu gado ama lagu iibin karo qof soo diiwaan geliya hadhowto 5 xabo 10 xabo midba inta ay awoodo ayaa loo dhigaya oo loogu geenaya goobtiisa saasaad gelinka hore iyo gelinka dambe ugu geenaysaa waxaad ku xisaabtamaysaa inaad 2,000 3,000 5,000 maalintii hadba inaad gadid ayaad ku xisaabtamaysaa dabcan mashiinadan koronto ku shaqeeyaan sidoo kalena korontada shirkadaha korontadana waa la heshiin kartaa oo dhalinyaro shirkadaha koronto la soo heshiiyay ayaa ila soo xiriiray oo qiimo aad iyo aad u naasilan lagu siinayo halkii kilowatt oo kale bishii oo dhan hadda ku shaqaysid ama motor yar ba soo gadan kartaa xilliyada shaqadu socdo aad mashiinadaada aad ku isticmaashid waa wax si fudud loo xallin karo ganacsi ahaan
marka faa'iido badan ayay warshada ay soo saari kartaa shirkadaha xafladaha arooska qaba oo kale ayaad u diyaarin kartaa dadka munaasabadaha xafladaha arooska ee sameeya oo kale ayaad ka diiwaan gelin kartaa oo sambuuska u samayn kartaa meheradahaas oo dhan ayaad supply kartaa waa business to business sidoo kalena waa ganacsiyada noqon kara subscription model ganacsiyada sida joogtada ah macaamiishooda wax loogu geeyo ayuu ka noqon karaa model ahaan waa mashruuc aad u faa'iido badan inta insha Allah muuqaalkan muuqaal xiga ku kulmi doono oo walaakiin Sakariya Cabdullaahi Cali. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.